farxad ayay noo tahay maanta inaad dhammaantiin halkan caawa aynu ku soo afmeerno safarkii 3 maalmood ahaa ee aynu soo bilaabnay maalintii Isniintii. halkan waxaa mudan ammaan gaara dhalinyarada suura gelisay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in ay noo rumowday riyadii muddadii ugu dambeeyey aynu soo wadnay, riyadaasi oo ahayd in aan samayno madal ay ku kulansan yihiin dhammaan bulshada qaybaha kala gedisan. barnaamijkan Borama Book Fair iyo Xigma Center for Research and Training waxay u taagan tahay inay bulshada ay wax ka beddesho, ay attitude-kooda ay beddelaan, ayna noqdaan madal kulmisa dowladda, aqoon-yahanka, culimaadudiinka, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka. oo wax amiisin oo taariikhiya samaysay. waxaan leeyahay Xigma Center ama Xigma Foundation waxaad gasheen taariikh lama iloobaana. ajcalahay inaan si guud ugu mahad celiyo qabanqaabiyaasha bandhiggan caalamiga ah odhan maayo keliya Boorama iyo Somaliland buu ku kooban yahay. waxa kaliya oo aynu kaga duwanahay bugfeeradii ka dhacay magaalooyinka kale oo ugu mahadnaqaya magaalada Boorama waa sectionkii hablaha. ku soo dhawaada magaalada aqoonta iyo ilbaxnimada, magaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta, magaalada dimuqraadiyadda iyo isbeddelka. waa magaalo cid kasta oo Soomaaliba ku nooshahay. caawa sharaf weyn bay tahay inaan idinkala soo qayb galo bandhiggan lagu soo bandhigay buugta ee Boorama. aan kaga baxaya hadalkayga bandhiggan sanadkiisa bisha July dhamaadkeeda halkan baynu isugu imananaa. qofkii wadaayo waxaynu doonaynaa inuu san ka sii qurux badnaado. waxaan rabnaa inuu arrimahan ka xasaasisan lagaga hadlo. bandhigu fulayaanu noqon. Idriis iyo Muuse waxaan u sheegayaa haddaa baqataan anagu idinka hadhaynaa. PPF sanadka labaad hadduu alla na gaarsiiyo inaanan marti ka noqon oo mulkiilo ka noqdo. runtii waa bandhig qiimo leh. markii ugu horeysayna magaalada Boorama lagu soo bandhigay waxaan aad u arkayay reer Boorama ayay u badnaayeen runtii dadkii ka qayb galayay halkan joogay dhinacay u tahayba. taasi waxay i tustay reer Boorama inay isku filan yihiin hadday aqoon tahay iyo hadday suugaan tahay. hore loo sheegay inay arrintani ka ballaaran tahay bandhig buugaag. waa madal ay ka dhalatay in la isdhaafsado aragtiyo, in la abuuro faham midaysan oo ku saabsan horumarka. waa madal keentay in ay isdhex galaan maskuxuhu. runtii bandhigga waa laga sheekeeyey 3 casho soconayay. aqoon-yahan adduunka oo dhan isaga yimi baa ka qayb qaatay. waxa lagaga hadlay wax kasta oo la doorbidayay inay horumar tahay. anigu afkii xukuumadda ku hadlayana diyaar baan u nahay. waxa weeyaan inaanu ka qayb qaadano sidaa wanaagsan iyo hal abuurka iyo aqoon-yahanku wixii ay maxaa dhahay soo kordhiyeen.